waxaanu doonaynaa cadaalad, waxaanu doonaynaa hadda waxay ka mid ahaayeen hadaladii ay ku dhawaaqayeen banaanbaxayaashii Soomaalida ee isku soo banaanbaxay meel ku dhow suuqa weyn ee magaalada Minneapolis ee loo yaqaano Caramel. dadka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ayaa waxay walaac iyo cabsi ka muujiyeen faldambiyeedyada ka dhaca Soomaalida gudaheeda ama loo geysto dadka ka soo jeeda qoomiyadaha Soomaalida kuwaas oo aanan xal loo helin ama aan la qaban dadkii dambiyadaas geystay. banaanbaxan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah dadka u adeega ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Mareykanka ee ku dhaqan gobolka Minnesota. waxaana ka soo qayb galay madax ka mid ah xaafadda ay degan yihiin ama cabashada ay ka soo jeedinayaan uu ka mid yahay taliyaha ciidamada booliiska qaybta shanaad. sidoo kale waxaa ka soo qayb gashay haweeneyda laga soo doorto deegaankaas Elizabeth. waxaa maalintaas sidaas oo kale la keenay ciidamo dheeraad ah oo ilaalinayay nabadgelyada dadka isku soo banaanbaxay. banaanbaxayaasha ayaa waxa ay fariin u dirayeen marka koowaad dowladda gobolka Minnesota haddii ay tahay qaybaheeda nabadgelyada iyo qaybaheeda sharci dejiyaashaba in ay ku foojignaadaan ama dambiyadan ka dhaca Soomaalida ama loo geysto ay wax ka qabtaan. sidoo kale dadka ka hadlay goobtan ayaa waxa ay ku dhiirigeliyeen bulshada Soomaalida ee wax ka og dambiyadan in ay la shaqeeyaan ciidamada booliiska iyo dowladda. sidaasoo kalena taliyaha booliiska ayaa waxa uu ka codsaday dadka wax ka og dilalkan loo geysto dadka Soomaalida in ay la soo xiriiraan ciidamada booliiska si loo qabto. waxa uuna sheegay ama ay sheegeen dadka Soomaalida qaarkood in lagama maarmaan ay tahay in loo ballan qaado qofkii marqaati ah ama qofkii haya warbixin in loo fidin doono dhaqaale. dilkan ugu dambeysay ayaa waxaa loo geystay muwaadin ka mid ah dadka Soomaalida oo waliba aad looga yaqaano suuqa Caramel. waxa uuna sidaas oo kale uu ahaa waardiye ka shaqeeya qaar ka mid ah dhismayaasha xaafadaas iyo suuqa Caramelka. dad fara badan ayaa waxay aad uga xumaadeen dilkan ugu dambeeyay ayna ku tilmaameen ama ay sheegeen in ay nasan doonin ilaa la soo qabto qofkii dambigan geystay. hadaladoodana waxaa ka mid ahaa sida tan: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه. maanto jimcaha anagu salaada jimcaha marka ka soo baxnay marxuum walaalkeen ah oo lagu dilay jidka aan maanta hor taaganahay ayaanu qayla dhaantiisi iyo in wax laga qabto cadaalad la keenaan halka soo baxnay Soomaali hadaan dalkan Mareykanka nabad baan ku deganahay. rag badan oo naga tirsan baa la dilay oo aan loo soo qabanin wixii dilay iyo wixii dambigaas galay. sida awgeed waa arkaysaan waalidiintii, waa arkaysaan dhalinyaradii, waa arkaysaan culimadiinkii, waa arkaysaan maanta looma kala harin. arrintan oo ugu dambeeyay walaalkeen Allah u naxariistay Cabdi Xaaji oo halka dhiigiisii uu ka muuqdo inaan isku soo baxnay aan u sheegnay dawladda Mareykanka. Greetings, folks. Speaking to you here from Minneapolis, Minnesota. I'm Inspector Todd Loaning, the commander of the 5th Precinct, Minneapolis Police Department. I'm here with community leader Jabril and all of these fantastic folks that have joined us here in support to show that we're united and that we're committed to stopping crime in this city. Put the guns down, put the knives down, and to solve our differences through the power of communication. anigoo ninka marxuumkaas u aqaanay si fiican xataa wadanka marka imid ugu soo dhaweeyay qaraab ahaan aan closestinahay soo waxaan ugu imaanay shucuur waxaan u soo banaan baxnay oo dadka isugu soo bixino oo abaabulnay waxa anaga oo nahayo oo maxaa la dareenkeena oo ka turjumay in la soo qabto ninkaas ninkii dilay caruurtiisa waa afar ay ahaayeen maxaa la dhahay isha ilmihiisa gabadha hadda markuu dhimato u imaatay saddexda kalena dhibaato darteed markana ayagoo ka naxsan aabahood ay soo bixi waayeen marka afar caruur oo ka tagay. waxaa la yiraahdaa Fahmo Maxamed waxaa ka mid tahay dadka ganacsatada ee Caramel Mall kula dukaamada also area waan dekanahay naxdin way laga naxo marxuumkana Allah u naxariistay. This is not the first time oo lagu dilo qof area-dan. Axmed Laari, Kalson TV, magaalada Minneapolis.